عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين waan idin salaam Somali Community Service walaalayaal waxa weeyaan maanta hadii waan joogay aniga shirka wasiirka uu joogay inkastoo hortay bilowday aan ka yar mashquulay haddana adiga kulli waxa ima dhaafin intii wali dadka aan la wareysan ayaan tagay Soomaalida Dr. Kulo ayaa hadlay dadkii kalena waxa uu hadlay muxuu ahaa nin taksiila ah adiga labada dhinacba waxa waa un lisir difaacay marka ugu dambeyntii hadalkan xurkiisa waxa weeyaan waxa hadlay muxuu ahay executive mayorka duqa magaalada dadkan horta saan arkay codada ay la dhiman hayaan waad ogeedeen maalin safiirka uu la kulmay wuxuu sheegay iyo sidii waxa weeyaan anaga noogula kacsan yahay dadka marka Durban Road ayaa ish lagu wada hayaa maantana hadii sheekadii meesha la imaadeen oo maalintii nooga sheekeynay safiirka meerka markuu hadlay aad buu waxa weeyaan noo dhaliilay sidii ay tahay Durban Road wuxuuna sheegay Saciid wuxuu dhahay maalintii waxaan ka wada hadalnay inaan wada shaqeyno hadii kale ahayn dhiba imaana dhibkii aan ka talinaynay ayaa imaaday sida sheekhaasiina qof wadada dhex taagnaa lagu dhacay ama shil baa meesha ka dhacay waxaasna waxa keenaya uu dhahay nidaam darrada markii runta laga hadlo nidaam darradaas hadii horaan la hagaajin lahay waxaan hadda ma dhaceen dhibkan hadda wuu dhacay wuxuuna sheegay mayorka arrintan inay serious tahay oo sidaan u maleynayno ay ahayn waa arrin anaga naga sii weyn ka Soomaali ahaan waxay arrintan dabada kula jirtaa arrintii Durban ka dhacday sidoo markii uu hadalka ka dhigay aan u fahmay aniga wixii wasiirka dhanay halkan ugu soo duulay Cape Town u socday inta loo soo laabay ilaa wasiirku xigeenka aad socday MEC for Safety and Security from Bishop socday dad badan oo security-ga dawladda qaybta sarsare ayaa socdeen marka arrintan arrin serious ayay ahayd ayaguna hadda waad ogtahay waxa soo dhow doorashadii local government-ka marka taas la ajligeedii ayaa waxa weeyaan dadka wadaniga inay qanciyaan ay isku daayeen hadalkooda waxa aad ugu badnay mar wali ay ku soo celcelinayeen waxa anaga mas'uuliyad naga saaran hadaan dawladinahay dadkeena wadaniga ah hantidooda iyo naftooda inaan badbaadino ilaahayna waxa lagu mahadiyaa arrimihii shalay dhaceen naf kuma dhimanin hanti amba ku burburtay marka intaas ay carabkooda aad ugu soo celinayeen marka waxay isku dayayeen inay qanciyaan dadka oo dhashay wadanka marka wasiirka naftiisa markuu hadlayay hadallada adag ku hadlay beekin inkastoo hadallada adag u dhashay waa ninkii hata waagi mar dhahay hata tugada hala toogto oo in badan la haystay hadda ninkii dadka wadaniga saa u hadlayay qaxooti iyo dad foreign maxaa u malaynay annaga ambo arrinta aad waxa weeyaan dhalishan noo saaray wuxuuna dhahay hadda ka bilaabato waa in caasimadeena siday ahaan jirtay lagu soo celiyaa waa in wasaq oo dhan laga dhaqaa waa dadka nidaam darrada dhan in laga haaqaa dadka sharci la'aanta in meesha laga saaraa hadii aad u baahan tihiin ciidan kordhisa waa nila soo diraya aad buu arrintaas ugu nuxnuxsaday marka waxa kale uu sheegay in uu la xiriirayo wasiiraha waxa kale quseeyo sida home affairs-ka dadka sharci la'aanta waa inay immigration soo diraan u dhahay SARS officials waa inay imaadaan oo business-yahan oo dhan la baaro marka niyo horta arrintan dhib kale ayay noo soo kordhinaysaa waxa kale oo aad arrintan lagu adkeeyay xagga hindida ayay nimankan u jeedeen saan arkay maxaa hindida ayay aad arrimaheeda uga hadleen wasiirka markuu dhahay waxa jira dawlad ku dhex nool wuxuu aad uga hadlayay hindida wuxuu sheegay in telefishinyaha iyo wax kasta ay ka arkeen fiidiyoyada ay ka arkeen dad badan oo qoryo rifles ku hubeysan wuxuu sheegay arrintaas in kaliya loo ogol yahay inuu qoryo saasi ku hubeysnaadaan militariga hatta booliska aysan qaadan karin in qoryo dadka wadaniga la tuso haduu sharci yahay hatta inay khaldan tahay qorigaada ku sharciyaysan inaadan banaanka soo dhig karin laakiin wuxuu dhahay waxaan shalay aragnay waa wax la yaab leh taas ana keentay inaan inta ku soo wada didno arrintan saa u maleynaysiin ma aha wuxuu dhahay waxaana booliska wuxuu amar adag ku siiyay oo waliba aad ugu nuxnuxsaday dadkii shalay qoryahaas rifles banaanka ku hayay waliba wuxuu dhahay banaanka rimay ku hanyina way ridaayeen waxaas oo qori dadkaas ku hubeysan oo magaaladan dhex jooga waxay ka dhigan tahay uu dhahay in dawlad ku dhex jirto ay tahay waa in si degdeg maantadan wuxuu dhahay in la soo xiraa intay orad ka dhicin
intaas markuu ku celcelinayay hal mar ayuu ka hadlay oo dhahay locationaha dadka dukaamaha goyna waa in lasoo qabtaa. marka dee dad location kolley in lasoo qabanaya idinka waa iska ogtihiin. wixii loo jeedo waa annaga iyo khaasatan annaga weliba iyo hindida. marka dee waa sida cabdisame haddaa sheegayay hoosahaas aan ku dhex noolnahay locationka annaga wax nooga tari karo ilaahay ka ahaan wax ma jirto. dowladdan in badan aan nala boobi jiro nalalaan jiro weligeed waxba may nooga qabanin mana nooga qaban karto waxna location lama ilaalin karo hindidana waxba nooga qaban karin. marka annaga niho danteena aan garanno. weliba wasiirka hadalka markuu bilaabayo wuxuu ku bilaabay arrinta hadda oo nii dhexayso waa inaan si hoose looga wada hadlo. idinka dhexdiina ayaa arrintan go-aanka gaari kartaa oo ka wada hadli kartaan uu dhahay. annaga ma rabno war oon kor niga keena Pretoria iyo meelaas inaan annaga niigu qasabno. waxaa muhiima uu dhahay inaad idinku arrintiina si hoose u xallisaan. waa markaa tuu cabdisame sheegaya waa in shir degdeg la qalqaaliyo niyahow oo lala hadlo muxuu ahay community-ga iyo taxi association-ka. marka weliba waxay dadka taxi association-ka iyo ka socday dadka wadaniga meesha imaaday aaday u sacbinayeen markii la dhaho dadkan hala soo qabto coostina hala kelin gareeyo. taasay ku qanacsanayeen. waxaan u malaynayaa educationka marka inay dhib sii wadi rabin waxaa loo ballan qaaday inay meelna la saarayo. taasay ku qanacsan yihiin wixii dhib geysto dhan la soo xirxirayo kaamerooyinka la baarayo booliista uu amar adag ninkaas aad u siiyey. marka arrimahaas oo dhan aan soo socdaan. tan kalena niyo laga fariisto sida cabdisame sheegay hadalka waan idinku dheereeyey iga raali ahaada. maxaase yeelay wixii meesha ka dhacaya waa waxaan u dulqaadan waynay runtii iyo wixii macnaha nagula eedeynayay. marka saasaan samayno aan shir degdeg isugu nimaano arrintaasna niyahow waxaa dan inoo ah inaan xal degdeg ka gaarno. waxaa kale oo jirta wasiirka wuxuu sheegay inuu coostin imaanayo meesha dhibka ka dhacay uu fiirinayo way imaadeen way fiiriyeen gaaritan dhabantu oo shalay kii hubka wada oo mees taagnaa ee farta ay nimanka taxi association-ka socday iyo dadka qoysii ay dhaheen kan hala baaro. ciidankii ayaa waxoogaa isweer ka yar qabtay soomaalida ayaa meesha qayli bilowday dadka taksiilayaasha way arkayeen. waxaan ku dhahnay waxaan dowladda waa igan arrintii dowladda la wareegtay ee farax ka qaada annaga ayaa haddana taxi association-ka marka waxay arkayaan dowladdii waxay qaban rabtaba inay annagaba ka horsii hortaaganahay. marka small iyo koox uu hogaaminayo nihow arrintan waxaa weeyaan dhib ay noo keeni annaga qoos waxaa laga in waxba nagula yeerin laakiin dadkii locationka walaalayaal waa u naxno arrintan locationka dhib ka bilaabana haddii meeshan aan wax ka samayno. marka intaasna waa ku dari lahay waana diga raali ahanaysaan waan hadalkan idinku dheereeyey. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.